بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara. waxaa noogu soo dambeysay axkaamtii deynta marka wax la iska deyminayo ama deen la kala qaadanayo sidii markaa loogu talagalay in loo mucaamaloodo. ilaahay wuxuu yidhi dadka iimaanka lahow, haddii aad deyn isku deyminaysaan intii wakhti la magacaabay laga gaaro deyntaa qora, faktubuuhu, ha qora mid kaatib ahoo wax qoraa ah oo beenkiinaa si cadaalada ha ku qoro. kaatibka yuusan diidin inuu wax u qoro sidii ilaahay u baray, asaga ha qoro. midka xaqa iyo deynta lagu leeyahayna ha meeriyo, asagaa dhahaya waxaa iyo waxaa qor, ha meeriyo. rabbina ha ka baqo ilaahay xaal uu rabbigii yahay, waxna yuusan ka nusqaaminin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaalaa deyntii. midka deynta lagu leeyahay ee korkiisa xaqa ahaaday haddii daciif uu yahay, amase uu yahay safiih, ama uusan kari karinba carabka dartii inuu ka hadlo, waxaa u yeerinaya weligiisa. si cadaalad ah ayuuna markaa ugu yeerin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. hadduusan awoodi karin inuu yeeriyo xagga carabka darteed, welibaa u yeerinaya si cadaalad ah. laba ragna markhaati uga dhiga buu yidhi, haddii la waayo laba gabdhood, halkii nin booskiisa ha lagu bedelo xagga markhaatigaad raalli uga tihiin. dumarka caqligooda nusqaan baa lagu tilmaamaayo mid hadday ilowdo ta kala la rabaa inay xusuusnaato. shuhadada yaysan diidin haddii kaalaya markhaati noo noqda la dhaho. idinkana ha ka noogina inaad deynta qortaan, teeda yar iyo teeda weyn labadaba, ilaa wakhtigeeda laga gaaro, waayo arrintaasaa u toosnaasho badan oo u fiican xagga markhaatiga, u dhow inaan la shakinin, ilaa inay tahay tijaaro maahane. tijaaradaasoo xaadir ahoo aad kala bedelanaysaan dhexdiina, korkiina dembi maaha taa in la qoro, laakiin mar walba markhaati u sameeya markaad wax kala gadanaysaan. kaatibka iyo markhaatigaba yaan la dhibin. haddaad saas samaysaan waa fisqi iyo diinka bax. ilaahayna ka baqa, alla cilmi buu idin barayaa, wallaahu bikulli shayin caliim. ilaahayna shay kasta midku cilmi badan buu ahaaday subxaanahu wa tacaala. saasaa markaa noogu soo dambaysay, wa in kuntum haddii aad tihiin calaa safarin, safar dushii haddaad ahaataan, oo walam tajiduu aydan helin kaatiban, karaani wax idiin qoraa, farihaanun, rahan ayaa ah maqbuudatun la kala qaadanayo. rahan maqbuudo ahoo la aqbalahayo ayaa dushiina ah. safar baad ku socotaan, warqaddii wax lagu qori lahaabaa la waayey, ama waxaa la waayey kaatibkii iyo karaanigii qori lahaa, markaa rahan baa la isticmaalayaa. sahaydii baa kaa go'day $500 intaad ka daynsato yaad u dhiibaysaa dahabkaaga, farihaanun maqbuuda. fa in amina, haddiise layska daayo oo rahantii laga dhaafo qofka, oo aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale, falyu'addi aladii, kii ha guto, falyu'addi aladii tumina la aaminay amaanatahu, amaanadiisa. haddii xaalku noqdo in rahantii layska daayoo lays aaminana, kii la aaminay ammaanada yuusan qayaanin oo ha guto ammaanadii ha ka soo baxo. walyattaqi illaaha, ilaahayna ha ka cabsada rabbahu, rabbigii xaal uu yahay. oo haddaa rahan lagaa dhaafay oo lacagtii daynta lagu siiyey, oo aad intaad soo baxday magaaladaadii timid, meeshii daynta intaad gudi lahayd lagaa rabay, aad dhahdo waxbana ima siinin, waxbana kuguma arkin, yaynan dhicin. walyattaqi illaaha rabbahu, rabbigii xaal uu yahay ilaahiisana ha ka cabsada buu dhahay ilaahay. walaa taktumu shahaada, shahaadadana ha qarinina. walaa taktumuu, ha qarinina ashahaadata, shahaadada iyo markhaatiga. waman yaktumhaa, qofkii qariya
fainnahu kaasi aahimun waa dembaabo, waa mid ka dembaabay qalbuhu qalbigiisaa dembaabay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waa qofkii shahaadada qariyey markhaatiga. wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan caliim buu ku yahay. ilaahay wax allaala waxaad samaynaysaan waa ku cilmi badan yahaye ogaada. wax ka qarsoon ilaahay ma jiree ogaada. sidaa darteed ayaa loo baahan yahay sidii wax loogu talagalay in markaa loo sameeyo. aayaddu waxay tilmaamaysaa haddii qofka safar ay yihiin, wax dayna la kala qaadanaya safarka gudihiisa, kaatib iyo karaani wax qoraana uusan markaa joogin, markaa in rahan la isticmaalo. rahantu waa shay beddel u ah waxaad daynsatoo loo haysanayo. haddii aad daynta keentaad rahantaadii qaadanaysaa, taasaa la isticmaali. ilaahay wuxuu kaloo tilmaamay haddiiba layska daayo gobolkiin gobolka kala aamino, kii la aaminay inuu ammaanadiisa guto, rabbina uu ka baqo subxaana wa tacaala. qolana waxay yidhaahdeen fain amina bacdukum bacdan, waa dhammaanoo xataa haddii safar lagu jirin oo qofku dayn uu ku weyddiisto, markhaati iyo qoraalna loo baahnaa, xataa haddaad taa iska dhaaftaan, markaa wax korkiina ah ma jiro. xaaladdaasuu markaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii tumina amaanatahu, ha guta kii la aaminay ammaanadiisa, walyattaqi allaaha allana ha ka cabsada rabbahu rabbigii xaal uu yahay. walaa taktumu ashahaadata, markhaatigana ha qarinina. waman yaktumhaa, qofkii qariya, fainnahu aahimun qalbuhu, qalbigiisuu ka dembaabo. qalbiga waxaa si qaasa loo tilmaamay waa ubucda keliya, ee hadduu jasadku hagaago, hadduu asagu hagaago, jasadka oo dhan uu fiicnaanayo. hadduu hallaabana, jasadka oo dhan ayaa markaa hallaabaya. sidaa darteed baa qalbiga loo isticmaalay. wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan caliimun, alla ku ogaal badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati, wixii samaawaadka ku sugan, iyo wamaa fi lardi, wixii arlada ku sugan oo dhan allay u sugnaadeen. wain tubduu, haddii aad muujisaan maa fii anfusikum, waxa nafafyaalkiinna ku jira, aw tukhfuuhu, ama aad qarisaanna, yuxaasibkum bihi allaahu, alla wuu idinkala xisaabtamayaa ka. ilaahay waa idinka xisaabayaa waxaad muujisaan iyo waxaad qarisaanba. waxaad qalbiga ku qarisaan ama sameeya ama ha samaynina. wax walba oo qalbiga ku soo dhaca, fiicnaan iyo xumaanba waa laydinkala xisaabtamayaa. fayakfiru, waa u dhaafayaa ilaahay liman yashaa'u, qofkii uu doono ilaahay waa u dhaafi subxaana wa tacaala. wayucadibu, waa cadaabayaa man yashaa'u, qofkuu doonana ilaahay wuu cadaabayaa. wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin, shay kasta dhammaantii qadiirun, alla kari kara buu ahaaday subxaana wa tacaala. aayaddani markay soo degtay, ilaan aad bay kastoo u dhib badan tahay aayaddoo qalbiga waxa ku jira ee ku waswaasa, haddaad ku hadashii, haddaad samaysii, haddaadan samaynba waa laydin xisaabayaa bay tilmaamaysaa. aayaddu markay soo degtay, saxaabada rasuulkay u yimaadeen, waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah, waxaana la ku kalifay xagga acmaasha waxaan kari karno, waa soon, waa salaad, waa sadaqo, waa wax allaala waxaan samayn karno. laakiin waxaana laku soo dejiyo maanta dushaada lagu soo dejiyey aayaddaasi annagu ma kari karno, mana ku dhaqmi karno, mana ku camalfali karnay dhaheen saxaabada. rasuulku wuxuu yidhi waa aayadee? aayaddan bay tilmaameen in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah. haddaad qarisaan iyo haddaad muujisaanba waxa qalbigiinna ku jiray naftiina, ilaah waa idinkala xisaabaya subxaana wa tacaala. haddiiba qalbiga laysku xisaabaya, qalbigana aanan hanan karin, mar kasta wax isaga soo dhacdhacayaan, rasuulkii allow annaga aayaddaa naga guddoon oo naga qabso, waayo kuma dhaqmi karno. laakiin wixii horena laku mashaqayn jirnay waa waxaan samayn karno.
rasuulku wuxuu ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaad dhahdaan sidii ahlu kitaabaynkii idinka horreeyey ay dhaheen oo kale, samicnaa wa casaynaa, maqalnay waana caasinoo ku dhaqmi mayno? ma saasaad u socotaan buu yidhi. ujeeddadiinnu ma sidaabaa inaad dhahdaan samicnaa wa casaynaa? bal quuluu samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir. saa dhaha buu dhahay nebiga. samicnaa waxaad dhahdaan buu yidhi samicnaa wa atacnaa, samicnaa wa atacnaa dhaha, gufraanaka ku dara, rabbanaa wa ilayka almasiir ha ka tegina. sidii bay dhaheen, way qaateen, amarkii bay u hoggaansameen. mar allaala marka carabkoodii uu u laylismay, xukunkiina ay u hoggaansameen, ayaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan, aamana alrasuulu bima unsila ilayhi min rabbihi. aamana alrasuulu, rasuulku waa uu rumeeyey bimaa unsila, wixii la dejiyey ilayhi xaggiisa oo min rabbihi, rabbigii xaggii looga soo dejiyey. waa rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waalmu'minuuna, mu'miniintiina way rumeeyeen wixii nebiga loo soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam. kullun, ku kastoo ayay ka mid ah, aamana waa rumeeyey oo wuxuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi, malaa'igtiisa, wa kutubihi, kutubtiisa, iyo wa rusulihi, rusushiisa. mid kastoo ka mid ah ilaahay iyo rusushiisa ay malaa'igta ayay rumeeyeen, ayagoo odhanaya laa nufariqu, kala qaadqaadi mayno oo kala geegeyn mayno, bayna axadin, axad baynkii oo min rusulihi, rusushiisa ka mid ah. intaan moxamed rumayno ciise ma beeninayno, intaan muuse aaminno ciise diidi mayno siday ayagu yeelaan oo kale, laakiin kulli waan rumaynaynaa. laa nufariqu bayna axadin min rusulihi. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen mu'miniintii, samicnaa waan maqalnay, wa atacnaa waana ateecnay, gufraanaka, noo dembi dhaaf ilaahayow, gufraanaka, dembi dhaafkaaga, rabbanaa rabbigayow, wa ilayka, xaggaaga almasiiru, masiirka iyo laabashada iyo marjicu ahaaday. meesha loo noqonayo waa xaggaada. aayaddaasaa marka lagu soo dejiyey oo lagu ammaanayo oo lagu tilmaamayo mu'miniinta inay amarka alle xaggiisa ka yimid dhammaantood ay u wada hoggaansameen, khayrka iyo wanaaggay ku soconayaan, diinta iyo wixii lagu soo dejiye oo dhanna ay diyaar u yihiin, ama naftooda ha karaahsato ama naftooda ha jeclaatee. walow annaa katabnaa baa noo imaan doonta, haddaan ku qori lahayn korkooda, an iqtuluu anfusakum, naftiinna laaya ama guryihiinna ka baxa, maa facaluuhu ilaa qaliilan minhum. in yaroo idinka mid ah ma ahee maba rumayn lahaynbe, laakiin inay sameeyaan baa fiican buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ma samayn lahayn ilaa in yar oo ayay ka mid ah maahane, ilaa in yaroo ayay ka mid ah ma ahee ma samayn lahayn. ee walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum, hadday samayn lahaayeen wixii lagu waaniyoo la amraa u khayr badnaan lahayd. walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum wa ashadda tathbiita, waidan la aataynaahum min ladunnaa ajran cadiiman, agteena ajir weyn baan ka siin lahayn, wala hadaynaahum siraatan mustaqiima, jid mustaqiimoo toosanna waan ku hanuunin lahayn buu yidhi ilaahay. idan amarka markuu rabbi xaggiisa ka yimaado, xikmad buu ku salaysan yahay, wuu ku jaango'an yahay, waa in la aaminaa. lilaahi, ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati, wixii samaawaadkii cirarka ku jira, iyo wamaa fi lardi, wax walboo arlada korkeeda dhexdeeda ku sugan. wa in tubduu, haddiise aad muujisaan maa fii anfusikum, waxa nafafyaalkiinna ku jira, ow tukhfuuhu, ama aad qarisaan, waxaa yuxaasibkum bihi, wuu idinka xisaabayaa kaa allaahu ilaahi. waa laydiin qabsan oo wanaaggeedana waa laydinkaga abaalmarin, xumaanteedana waa laydinkala xisaabtamayaa. fayakfiru, waa u dhaafayaa ilaahay liman yashaa'u, qofkii uu doono, wayucadibu man yashaa, qofkuu doonana waa cadaabayaa. wallaahu ilaahay calaa kulli shayin, shay kasta qadiirun,
alla kari kara buu ahaaday. aamana arasuulu rasuulku waa aaminay oo wuu rumeeyey bimaa unsila wixii la dejiyey ilayhi xaggiisa oo min rabbihi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey. waalmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen ayagana. kullun ku kastoo ayay ka mid ah aamana billaahi wuxuu rumeeyey ilaahi. aamana wuu rumeeyey billaahi iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtii alla ayuu rumeeyey inay makhluuq alla yihiin, inay banaad alla ahayn, inay yihiin macsuumiin ilaahay xafiday, inaysan amarka alla caasinin, inay sameeyaan wax allaala wixii la amray, rag iyo dumar inaan loo kala nisbayn karin, nuur in laga khalqay. wa kutubihi kutubtiisiina way rumeeyeen oo kutubtii samaawiga ahaa ee xagga rabbi ka yimid ee injiil iyo towraad iyo zabuur iyo qur'aankay u waaweyn yihiin dhammaan way rumeeyeen. wa rusulihi rusushiisana way rumeeyeen oo rusushii alle dhammaan uu soo diray ayay wada rumeeyeen ayagoo odhanaya laa nufariqu kala qaadqaadi maynoo kala geegeyn mayna waayo orahdooda bayna axad baynkii oo min rusulihi rusushiisa ka mid ah. inaan mid rumayno, midna diidno, mid inaan oggolaano, midna ammaanno, mid aan hoos u dhigno, midaan kor u qaadna samayn mayno. walam yufariquu bayna axadin min rusulihi ma kala qaadqaadaan. laa nufariqu ma kala farqinayna bayna axadin oo min rusulihi. wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa mu'miniintiiyo samicnaa waan maqalnay ilaahay hadalkiisa, wa atacnaa waana ateecnoo waan u hoggaansanay. gufraanaka dembi dhaafkaagow macnaha ilaahow noo dembi dhaaf waaye. gufraanaka rabbana rabbiyow wa ilayka xaggaaga almasiiru masiirka iyo laabashada iyo marjicu ahaaday. laa yukallifu allaahu ilaahay ma kalifaya nafsan naf ayaa soo degtay markii dambe. intaa markay dhacday saa u wada hoggaansameen waxaa dhacday markii dambe inba laga nasaqayba aayaddii dhahaysay in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah waaba laga nasaqayba. waxaa lagu nasaqay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat. maanta wixii ka dambeeya qalbiga waxa ku waswaasaa waa laydin dhaafay. qof kasta wuxuu qabto ee uu sameeyey xumaan iyo samaan buu leeyahay. haddii qalbiga waxa ku waswaasaa waa laydin cafiya macnaha. waata xadiidku tilmaamahayay ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay wixii qalbigooda galgala ilaa ay ku hadlaan ama ay kaga camal qabtaan. wixii lagu ikraaho waa laga cafiyey, waxay iloobaan waa laga cafiyey, wixii khata uga dhaca waa laga cafiyey. ilaahay naxariistiisa laa yukallifu allaahu ilaahay ma kalifahaya nafsan nafi ilaa wuscahaa awooddeeda maahane. bacdamaa qalbigu dadku aysan xukumi karin. allaha raxmaankaa gacantiisa ay ku jirtii farihiisa uu ku gedgediyo si allaala sidii uu doono oo qofku wuxuu asagu hantay uusan ahayn. ilaahay subxaana wa tacaala waa idinka cafiyey waana idinka saamaxay. qofka waxa wuscigiisii taaqadiisii awooddiisu ay tahay waa wuxuu qaban kara iyo wuxuu ku hadli karo labadaasaa laydin qabanayaa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waata xataa ilaahay dumarka faraha badan ee la guursanayo mid baa laga yaabaa qalbiga inuu raaco, tii kale qalbiga raaci waayey. taanana rabbi waa naga dhaafay subxaana wa tacaala. walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum buu yidhi ilaahay. ma awoodi kartaan dumarka inaad u kala garsoortaan xataa haddaad dadaashaan walow xarastum. ee falaa tamiiluu kulla almayl fatadaruuha kalmucallaqa. mid uun ha u iilanina oo tii kale aad ka tagtaan ayadoo mucallaqa ah wax laalaaban. marka xagga qalbiga in badan baa ummadda loo saamaxay. laa yukallifu allaahu ilaahay kallifi maayo ku mashaqayn maayo nafsan nafi ilaa wuscahaa wixii awoodda maahane. taagteeda iyo awooddeeda maahana lahaa waxay leedahay maa wixii kasabad ay kasbato oo wanaag iyo camal fiican iyo khayr ah waa la siin oo waa looga abaalgudayaa ajirkeedayna leedahay. wa calayha
nafsadii waxaa korkeeda ahaaday oo loo qabanayaa maktasabat waxay kasbato oo xumaan ah, taana ayadaa laga aari oo waa laga goynayaa oo waa loo qabsanayaa. rabbanaa rabbigeeniyow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaan ilowno. balaa buu yidhi ilaahay, waa yahay. aw akhta'naa ama aan gafno, haye buu yidhi ilaahay. rabbanaa rabbigeeniyow waa ducada mu'miniinta, walaa taxmil ha xambaarin oo ha nagu xambaarin calaynaa korkeena isran culays, kamaa sidii xamaltahu aad ugu xambaartay oo kale cala aladiina kuwii korkooda min qablina anaga naga horeeyey. haye buu yidhi ilaahay. rabbanaa rabbigeeniyow walaa tuxamilnaa ha nagu xambaarin maa laa taaqata lanaa waxaanan taaqa iyo awood u lahayn, bihi kaa wacfu cannaa iska kaaya cafi, waqfir lanaa noo dembi dhaaf, warxamnaa noo naxariiso, anta adigaa mowlaanaa mowlaheena ahe. rabbiyow na cafi, rabbiyow noo dembi dhaaf, rabbiyow noo naxariiso, waayo anta mowlaanaa mowlaheennii baa tahay, gargaaraheennii baa tahay, tiirkeennii baa tahay. haddaadan na cafin, noo dembi dhaafin, noo naxariisanin, cid kale oon ka helayna ma laha, waayo anta mowlaanaa adaa mowlaheenna ahe. wansurnaa allow nooga gargaar oo nooga hiili cala alqowmi alkaafiriina qoomka kaafiriinta dushooda. raggaa cadowgeenna ah ee aanna arki karin oo aanna rabin oo aanna rabin oo aanna oggolayn oo mar kasta dhibaatada nagu hayana rabbow gacan naga sii. rabbow nooga gargaar oo nooga hiili cala alqowmi alkaafiriina. aayaddu waxay nasaqday saan soo tilmaannay aayaddii lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alardi. meeshaasaa lagu joojiyey oo naf waxay ku waswaasto. hadda wixii ka dambeeya cid isku qabsanaysaaye markaa ma jiro. laa yukallifu allaahu ilaahay ma kellifaya nafsan nafi ilaa wuscahaa awooddeeda maahane. lahaa waxaa u sugnaaday oo ay leedahay nafsadii maa kasabat waxay kasbatay, wa calayhaa korkeedana waxaa ahaaday maktasabat waxay kasbatoo xumaan ah. lahaa maa kasabad waa wanaaggii way leedahay oo waa laga abaalgudayaa. wa calayhaa maktasabad waa xumaantii dusheeda waxaa laga goynayaa wixii xumaanay kasbatay. rabbanaa rabbiyow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaanno aw akhta'naa ama aan gefno. salaad baadba ilowday adoo iska fadhiya, markaad soo xasuusata tuko, cid wax kuu haysata markaa ma lehe. waayo insaanka dabcigiisu waa nisyaan, waa ilowsho. aabbaa iloobay, walaqad cahidnaa ilaa aadam min qablu fanasiya, waa hilmaamay. waa min tabci linsaan walaalayaal. adoo tukanayaad rakacad iloobaysaa, adoo salaaddii ku jiraad atixiyaadka iloobaysa oad istaagaysaa. saa darteed baa mararka gobolka mid ah adigoo sooman intaad cunto oo aad cabto yaa markaad dheragtood suuqa aadda soo xasuusan. idan taa waana loo dhaafay. laa tu'aakhidnaa in nasiina. qof kastoo saa'im ah oo asagoo sooman cuna oo cabo ilooba buu yidhi nebiga, soonkiisa ha iska wato. kafaara gudna lagama rabo, qadana markaa lagama rabee. aw akhta'naa ama aan gefno, waxbaa sidii loogu talagalay si aan ahayn aad u samaysay. khata' bay arrin ku dhacday. khata'a sidaa darteed ilaahay wuu noo dhaafay subxaana wa tacaala. laysa calaykum junaaxun fiimaa akhda'tum bihi baa noo imaan doontaa. korkiina dembi maa waxaad ku gaftaan, walaakin maa tacammadat quluubukum waxaad kas u samaysaan baa laydin qabanayaa. rabbanaa rabbigeeniyo walaa taxmil ha xambaarin calaynaa korkeena isran culays, kamaa xamaltahu saad ugu xambaartay oo kale cala aladiina min qablina dadkii naga naga horreeyey dushooda. maxaa lagu xambaaray? mar allaala markay tooba keenayaan toobakeenkooda waa inay isdilaan. waan soo marnay faqatuluu anfusakum daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum. annagu qalad baan samaynaynaa. 2 rakaca intaad tukatood weysaysataad gacmaha sare u taagi, rabbow isaamax oo icafi, dib dambe ugu laaban maayo. rabbiga waa ku saamaxayaa subxaana wa tacaala. cid ku ogaatayna ma jirto.
cid wax kula socoto ama wax kaa ogaana ma laha. xaaladaasaa marka waxay tilmaamaysaa culayskii ayaga la saaray in rabbi naga qaaday subxaana wa tacaala, kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina, kuwii annaga naga horreeyey culayskii la saaray oo kale. walaa tuxamilna, rabbow ha nagu xambaarin maa laa taaqata lanaa bihi, waxaanan tabar u lahayn. ilaahu wax awooddeenna ka baxsan ha nagu xambaarin. cibaadada laftigeeda ilaahay wuu noo khafiifiyey. yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra. waxaana loo tilmaamayaa qof kasta inuu ilaahay fudeed la doonay. wakhuliqa alinsaanu daciifa, insaankii tabardarra lagu abuuray, khaasatan ummaddan maba ula sii jirtaba. ilaahay in badan ayuu ka khafiifiyey. taahaa maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa, inaan kugu dhibno looma soo dejin qur'aankan. faataquu llaha ma statactum, intaad kari kartaan rabbigiin ka cabsada. xajka mar allaala markii la farad yeelay ay soo degtay, walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. waxaa nin baa istaagoo dhaa, yaa rasuula allah, akulla caamin, sanad kasta maan xajinaynaa? rasuulku wuu ka aamusay sala allahu calayhi wasalam. 3 jeer buu ku soo celceliyey, ilaa markii dambe rasuulku uu yidhi, haddaan haa dhihi lahaa waa idinku waajibi lahaa, mana awoodi lahayn. war haddaan wax idin amro, intaad kari kartaan kala imaada. haddaan wax idinka reebana bilkulliyan uga taga. dadkii adinka idinka horreeyey waxaa lagu halaagay su'aal fara badan iyo khilaaf ay nebiyadu khilaafayeen. xajku waa hal mar, wixii ka bataana waa iska sunno falasho. taa waxay tilmaamaysaa in ilaahay culayskii naga qaaday. walaa tuxamilna, rabbow ha nagu xambaarin maa shay laa taaqata, taaqa iyo awood iyo tabar lanaa annaga aanan u lahayn bihi shayga. wacfu canna, rabbow xaggeenna saamax. rabbiyowna cafi, wacfu cafi cannaa xaggeena. ifinta ilaahay waa waxa ugu muhiimsanee qofka bani aadam ku helo. rabbiga hadduu marku cafiyo, khayr adduuni mid aakhiraa gacanta kuugu jirta. waqfir lanaa, noona saamax oo noo dembi dhaaf. ilaahayow noo dembi dhaaf alla haddaad hesho adduun io aakhiro, sharafteedii wanaaggeedaa gacanta kuugu jiraa. wax ka weyn oo cafinta alla qofka la siin lahaa ma jiro. waqfir, allow dhaaf, lanaa annaga khalad socdaan nahay, dembi socdaan nahay, xumaantii baa nagu badatay. rabbow caasitaankaagii habeen iyo maalin baan ku jirnaa. addoommadaydiiyey habeen iyo maalin waad gafaysaan buu yidhi ilaahi. anigana dembigaan dhaafaa, dembi dhaaf i weyddiista aan idin dembi dhaafee. waqfir lanaa, noo dhaaf ilaahayow, na saamax ilaahayow, qaladka naga tirtir allow. adi mooye cid kaloo na cafin karaa ma jirto. adi meehee cid kaloo noo saamixi karta ma laha. adi meehee cid kaloo noo dembi dhaafi kartaa ma laha. waqfir lanaa, rabbow noo dembi dhaaf. warxamnaa, noo naxariiso. naxariista ilaahay wasicad kulla shay, wax kasta way ka waasic noqotay oo way ka ballaarnaatay. warxamnaa, rabbiyow noo naxariiso. rabbow naxariistaada na sii, waayo anta mawlaanaa, adigaa mawlaheena ahe. gargaaraheenna adiga waaye, adiga mooye cid kaloo mawla noo ah ma jiro. daalika bianna allaha mawla aladiina aamanuu wa anna alkaafiriina laa mawlaa lahum. taa waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu mawla u yahay dadka iimaanka leh, kaafiriintana wax mawlaa inaysan markaa lahayn. nicma almawlaa wa nicma annasiir. inta mawlo noqotana allah u nicmo badan, inta wax u nusraysay u gargaartana ilaahay baa u nicmo badan. warxamnaa, noo naxariisa, anta adigaa mawlaanaa, mawlaheena ahee. fansurnaa, allow noo gargaar. waxaad nooga gargaartaa ood nooga hiilisaa cala alqowmi alkaafiriina, qoomka kaafiriinta ah. qoomka kaafiriinta waa qoom dhib badan, waa qoom shirqool maleega, waa qoom muslimiintii mu'miniinta aan jeclayn. naceebka mu'miniinta ku weyn, cid kale oo naga celin kartoon adi ahayn ma jiree. rabbow kuwaana nooga gargaar, nasri naga sii, gacanta sare annaga na sii, guusha annaga na sii, annaga micigeenna ahaw. fansurnaa, allow noo gargaar.
waxaad nooga gargaartaa ood nooga hiilisaa ood naga celisaa oo mar walba aad gacanta sare naga siisaa cala alqawmi alkaafiriina qoomka kaafiriinta dushooda, qoomka gaalada ah ee nacaybka iyo dhibka nagu wada, ilaah kuwaa nooga gargaar. suuratu aali cimraan. wabiاllaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.